aada noogu weyn aada noogu qiimo badan maskaxdeenna aan marna ka baxaynin waaye inaan idinku wada marti qaadno inaad nagala markhaati noqotaan arday sanadii wax soo baranayay dhammeeyeen dhammaan shuruudihii u dejisnaa jaamacadda qaybteeda akadeemiyada in maantay aan ugu hambaliyayno bogaadinno maamuusno sharaf iyo karaameyn u samayno xafladdan qiimaha iyo qaayaha badan leh dhammaan inta xafladda nagala soo qayb gashay waqtiga noo soo hurtay anoo ku hadlaya magaca maamulka macallimiinta iyo dhammaan shaqaalaha iyo ardayda jaamacadda waan idiin mahad celinaynaa. carabta waxay yidhaahdaan ismun calaa musamaa, yacni gabar madow haddaad u bixiso cadday macnaha waad ku kajintay ee la macno tahay, laakiin gabar cad haddaad cadday tidhaahdo booskeeda ayaad dhigtay. marka jaamacadda in himila la yidhaahdo runtii booskii ay ku habbooneed ayaa la dhigay. inta lahayd magacaasna aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin oo way asiibeen. annaga waxaan idhaahnaa taariikh ahaana kaga sheekeenaa hantiyaan leenahay, khayraadaan leenahay, badberi batroolaan leenahay, macaadinaan leenahay. takhasusaadkeena inaan ku saleyno waxyaabaha dalkeena ka soo baxa. dad badani waxay yidhaahdaan jaamacadaha badan ee waddanka tayo ma laha ma fiicna, laakiin anigu weligeyba waxaan taageerayay in iskuullada la badiyo, in jaamacadaha la badiyo. waddankeenu in badan buu dib u dhacay. waxaan ku hormariyeynayaa dadkii iyadoo xabadu socotay, iyadoo dhinac magaalada laga burburinayo, hobyaha lagu burburinayo iyo suuga iyo waxooda lagu burburinayo, dhinacna iskuullada ardayda lagu dhigayo, dhinac jaamacadaha ka sameynayay. dadkaasi waddanka waxay ku leeyihiin xaq aada iyo aada u weyn bay ku leeyihiin. ardayda maanta qalinjibinaysa ee aan xaflad u qabanayno waxay dhammaantood ka soo baxeen ay waqtigooda geliyeen inay ku takhasusaan takhasusyo loo baahan yahay oo waddankeenna inta badan wax ka qaban karo, hadday noqon lahayd dhaqaalaha, caafimaadka, IT-da iyo ganacsiga, maamulka iyo maareynta. waxaa ku jira dufcada maanta qalinjibinaysa dufcadii ugu horreysay oo si rasmi ah ay jaamacadda u soo saarto oo ah gabdho bachelor ku qaadanaya cilmiga umulsada. hadda waxaan aad uga mahad celinayaa yani midwives-ka. yani maalin kasta waxaad maqlaysaan idaacadaha gabar umulaysaa bajaaj ku dhex umushay. haddii xaafadaha mid kasta ay ka furaa laheeda meel lagu umulo bajaaj meel lagu umuli lahaa maya. waddan kastana wuxuu ku hormaraa shacbigiisu intuu aqoonta leeyahay. shaqada aqoonta abuurta, dowladu ma abuurto. inta aqoontu badato shaqadaa badanaysa. qabiilka ha fiirinina, lacagta ha fiirinina, jaaha ha fiirinina, xaqa u gargaara. soomaalinimada, muslimnimada, midnimada, wadajirka, horumarka, qarannimada, sharaf soo celinta waxaan ku gaarayna u kaalmeeya, ninkii samayn kara u kaalmeeya. intaasaan leehay. arday aada u tiro badan oo ku dhow 200 oo arday runtii waa wax aada iyo aada loogu farxo. waxaana aada iyo aada ugu mahad celinayaa macallimiintii ku soo dadaalay iyo waalidiintii iyo ardadii ayaguna isku tacallujiyey oo xilligaa dheer soo geliyey. walaalayaal saad ogtihiinba waxa weeyaan waddan hadduu horumar gaadho waxaa horumarka gaadhsiiya ardada ayaa horumarka gaadhsiiyay jaamacadaha. runtii aadan ugu faraxsanahay maanta inaan munaasabadda qalinjibinta aan joogno jaamacadda himilo anigoo ku hadlaya magaca waalidka. laa shukra cala waalid waa mina waalidkiina gudateen waa loo baahnaay, dadaal badanaa samayseen, balse waxaan leeyahay ardaydii aada heerkaas soo gaarsiiseen fursado kale oo waxbarasho waaliya. jaamacadda himilana waxaan rajeynaynaa inay noqoto jaamacada hadda muqdisho ku eg tahay. waxaan rajeynaynaa inay gaarto gobolada dalka inay gaartaan rajeynayna insha allah. anigana waxaan soo dhaweynaa maadaama dowlad gobolka hirshabelle aan ka tirsanahay oo gobolkiina aan ka imid, haddii ay jaamacad u soo wadaso inay halkaas tagto inaan u fududayn doono haddii ilahay rado insha allah. 178 arday ee maanta jaamacadda ka qalinjabinayso xafladoodana goobjooga u nahay. anshixii iyo xirfadii iyo aqoontii intaba dadka ha kala duwanaadaan haddii rabaan, laakiin heer aan ku qanacsannaha oon isleenahay ilaa xad waa qofa garayseen
waa dabosheen inaan gaarsiinay aragtida jaamacadda maalinkii la aasaasayay lagu aasaasay waxay ahayd bixinta waxbarasho sare leh asluub iyo dhaqankii waxbarashada. waxaan caddaynaynaa oo halkan aan ka caddaynayaa in wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay diyaar u tahay in ay jaamacadaha soomaaliyeed ee soomaaliya ku yaalla dhammaantood ay aqoonsan tahay. annagu waxaan u shaqaynaa sida uu horan u sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre. aniguna halkan maanta waxaan ka caddaynayaa aniga oo toodii raacaya iyo sida iyagu nagu hogaaminayeen waxaan halkan ka caddaynaynaa in jaamacad kasta oo dalka ku taalla hadday gobol tahay hadday caasimad tahay iyo hadday degmo tahayba dhammaantood aan wada aqoonsan nahay shahaadooyinkeena aan difaacayno meel kasta oo adduunyada laga joogo. marka waxaan taasna ku mahadnaqayaa waalidiinta iyo ardayda soomaaliyeed ee waktiga dheer kusoo jirtay iyo waalidiinta kusoo tabcayaba waxa aan leeyahay haddii uu shaki idinku jiray ama dareen idinku jiray dareenkaas in idinka baxo ayaa codsanaya.